siyaasiyiintan Soomaaliyeed oo caan ka ah gudaha Soomaaliya ayaa ka soo horjeestay madasha la magac baxday Horusocod ee xildhibaan Daahir Ciro ayaa sheegay in madashaasi tahay mid ay aasaaseen dad maslaxad gaaban leh oo uu sheegay in danahooda gaarka ah ay ka waayeen dawladda cusub waxaana uu ku baaqay in dhammaan xubnaha ku midaysan maxkamad la soo taago waayo dalkan maanta wuxuu u baahan yahay inuu hore u socdo wax ka shaqeeya inuu u dul socdana oo dib u socdana uma baahna madashaanu sida ay sheegeen waa niman hadda ka soo horjeeda sida wax u socdaan maanta Soomaaliya meesha ay taalla waynu ognahay marka hadiiba ay sida yihiin oo ay maanta oo xaaladii sida marayso dalku oo dalku cadow badan leeyahay danley badan leeyahay kuwaas dhamaantood ay dhantooda ay gaadayaan ana waxaan qabaa cid alla cid kamida xubin kamida madasha kuwa la baxay Horusocod maadaama ay maslaxad gaaban ku shaqeynayaan dan gaaban ka shaqeynayaan madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre dhinaciisa xildhibaan Xasan Keenan ayaa ku tilmaamay madasha Horusocod shakhsiyaad ku bahoobay in ay isugu jiraan kuwa dhaqaalo iyo xil raadis ah sida uu hadalka u dhigay waa niman dhaqaale raadis ah anuu ka leexleexamay iyo wasiir raadis waxa weeye wasiirka mid calaf u galaa qaatay anigu waxaan kamid ah xildhibaanadii gudahana in laga qaadan karo iyadoo gudaha kaliya laga qaato baarlamaanka iyo golaha xukuumaddu ay gudaha laga qaato ayaan waxaan furnay xilligii hadda ra'iisul wasaaraha ay bannaankana in laga qaadan karo gudahana laga qaadan karo marka aniga maxaa wasiir la iga dhigi waayey oo golaha wasiirada la igu dhigi waayey horta nimana waay nimankaas waxay ogyihiin ama heykay dhaqaale ku raadinayay hawlo kale ku raadinayay siyaasadeed dawladdan xukuumaddan socota waa xukuumad dhisan sidaan u arko anigu dhaqaalada bixin maysa dhaqaalaha bangiga ku jirtaa ayadaa anigu waxaan u bixiya la xisaabtanaaba la yidhahdaa waxa weeye bangigay ku jirtaa hoo iga aamus sidoo kale Axmed Baasto oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa nasiib darro ku tilmaamay in fasaxa la siiyo xildhibaanada meeshii la doonayay in dhibka ummadooda ay kula qaybsadaan ay u soo maleegaan dhibaato dawladda Soomaaliyeed ee rajada laga qabay lagu duminayo inay dhibka la qaybsadaan meeshii aan ka sugaynay nasiib darro weey dhag xumi weey inaan maqalno madal oo aasaaskeedu uu yahay dumin la duminayo dawladdii markaa jirtaba lagu duminayo markaan dib u fiirin xilligii Cabdullaahi Yuusuf xilligii Cabdiqaasim xilligii Sheekh Shariif xilligii Xasan Sheekh afartaaba waxaa lagu dumiyay madal maanta markaan ogaanay madashu inay tahay boorgaleen lagu duminayo hadba shacbiga Soomaaliyeed oo dhibaatooyinka aan soo sheegay ku jira xildhibaanada aan islaan xildhibaanadii ugu quality-ga badnaa ugu caqliga badnaa la soo xulay aqoon-yahano ka siman dhalinyaro danqaraysa ay ka mid yihiin nasiir daraanu aragnaa markay shacbigii oo dhibaatooyinka ku jira booqolahayeen ugu dambeyn xildhibaan Maxamed Iidle Geedi Xerow ayaa sheegay in dastuurka Soomaaliya loo baahan yahay in wax laga bedelo haddii loo baahan yahay in xildhibaanadu ay mar waliba is-hortaag aanay ku samayn shaqada xukuumadda maadaama uu sheegay dastuurku uu qorayo in golaha wasiirada laga soo kala xulan karo gudaha xildhibaanada iyo bannaanka taas oo xildhibaanada iska waaya xubnaha golaha wasiirada ay carqalad ku samayn karaan xukuumadda wata dhibaatada dalka Soomaaliya haysato inta badan waa dastuurka sababtoo ah haddii dastuurkan qodob kamid ah waxaa sheegayo in golaha wasiirada laga keeni karo gudaha iyo bannaanka intii qodobka uu taagan yahay oo aan la kala soocin oo wasiirada iyo xildhibaanadu ay isku milan yihiin waxaa meesha ka baxaya in Soomaalidu ay wax toose oo dawladda oo wada shaqeyso yeelato ana marka hore waxaan leeyahay dhibaato u badan meesha ka socoto waa dhanka dastuuriga waxaa yeelay muxuu ahaa xildhibaanadu haddee golaha wasiiradu ka mid ahayn mowqif meesha ay qaadan lahaayeen waxay noqon lahaayeen dad xukuumadda la xisaabtamo laakiin haddii golaha wasiirada ay ka mid yihiin qaarkii waayo waa laga yaabaa in si kale u fikir si kastaba tan iyo markii lagu dhawaaqay madasha la magac baxday Horusocod
waxay soo tarayay qaybaha bulshaweynta Soomaaliyeed oo madashaasi ka hor imaanaya kuwaas oo u arka in xukuumadda curdanka ah ay majaxaabinayaan